warar hoose oo lagu kala sooyo aan ka helino xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sheegayo in wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka injineer sabriyo uu soo gaarsiiyey waraaqadaasi ayaa la sheegayaa inuu ku codsanayo inuu xilka isaga dego islamarkaana cadaadis xoogan oo kala kulmay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre labadii maalmood ugu dambeysa ayaa shirar la isku fahmi waayeen asagii xasan cali kheyre ka dhex dhacay xafiiskiisa kadib markii la codsaday inuu soo qoro waraaqad xilka qaadisa taabide injineer sabriya ayaa sheegay inuu khilaafka asaga iyo taabid oo ku horreeyay islamarkaana uu geli karin wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa 4 bishan la keenay islamarkaana isku shaandhe lagu sameeyey golihii wasiirada injineer sabriya ayaa ah shakhsi aad u degan islamarkaana ganacsada si weyn looga yaqaano gudaha iyo dibadda dalka soomaaliya waxaana uu sheegay in uu khilaafkaasi dhex muquuran karin bilaha hiraab ayaa waayadii ugu dambeysay waxay wadeen qorshayaal ay ku mucaaradayaan dowladda xasan cali kheyre islamarkaana madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaad kala socon doontaan hadduu rabbi raali ka noqdo